gudoomiyaha gobolka Hiiraan maayarka magaalada gudoomiyaha ururka haweenka culamaa diinka madaxda daabshir group ganacsatada magaalada iyo dhammaan bulshadaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xirfadan quruxda aadka badan leh. waxaa iga horeeya oo maleynaa xaaji dhagaxow oo aad u af Soomaali badan haddaa kaftan ka hormariyo waxaa la nin masaajid khudba waxa ka akhrin jira la sheekh aad u fasiix ah oo codkiisa u fiican yahay oo haddana aftaana marka maalin uu xanuunsaday maalintii jimcada ku xigtaa waxaa la lahaa sheekh soo istaagaa la waayay nag war sheekha masaajidkana waa aad loo imaadaa magaalada aad loo imaadaa wax imaado markii la waayay markii dambe midaha wuxuu dhahay anaa isku biimeenayo uu imaado wuxuu dhahay sheekha khudbadii jimcada ugu dambeysay ni akhri ma fahanteen uu dhahay markaas waxaa dhahay wuxuu dhahay aqimi salaah wax kale ma jiro dhahay marka xaaji dhagaxu haduu hadlay waa aqimi salaah maraysaa hadal kale ma harin intaas kadib madaxda iyo khiyaarta meesha joogto waxaan rabaa inaan maanta caawin la wadaago goobtan quruxda badan iyo xalfadda sida qurux badan loo agaasimay kadib shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu raqiisan ee ku hadal waddanka Soomaaliya dhan waxaa ogtihiin halkii dollar oo Somtel ah hadaa rabtid inaad gudaha ku hadashid inaad ku hadli kartid 140 daqiiqo oo waafi ah codkiisana fasiix ah halka wadamada qaarkood dibadahana aad ku hadli kartid Mareykanka Australia Canada wadamo badan oo Soomaaliya ama Malaysia iyo India wadamo badan oo Soomaalida ama qaxooti ahaan u dageen ama waxbarasho ahaan u tageen waxaa shirkadda isgaarsiinta waxay ka dhigtay in 20 daqiiqo halkii dollar lagu hadli karo wadamo qaarkoodna 10 daqiiqo 15 daqiiqo lagu hadli karaa marka waxa waaye waa shirkadda ugu raqiisan ee wicitaan loo isticmaalo dalka gudihiisa sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Somtel maadaama dadka Soomaalida ay u badan yihiin dad qurba jooga iyo dad badan oo waddanka ka joogaan waxay u sameysay adeeg la dhahayo ila soo hadal ama VoIP kaasoo waddanka ama qofka lambarka Somtelka oo lambar Mareykanka loo kar saaro ama lambar Yurub loo saari karo ay ehliyadiisa dibadda joogaan ay ku soo wici karaan si bilaash ah wuxuu iska dhiibayaa khidmad $15 ah markaas qofka sidoo rabo ugu hadli karaa 24 saacba waa u lacag la'aan sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay haysaa adeega internetka oo noocyada kala duwan leh waxaa ogtihiin in shirkadda ay keentay xarigii labaad oo magaalada ugu cusub latency-giisa ama speedka uu qof ku soo gaari kara internetkana ama serverka weyn uu ku gaari karaan uu yahay midka ugu sareeca badan ama ugu dhaqsiyaha badan waxaa ogtihiin in maalin hadda ka hor magaalada waddanka dhan uu ka go'ay cable-ka internetka laguna fakaday internetka Somtel ay keentay taasi waxaa daliil u tahay in Somtel ay macnaha focus gareyso ama ay xoog saarto suuqa ay ku jirto oo ah isgaarsiinta meelo kale meena ku leexanin waxay xoog saartay inay mar walba baahida isgaarsiineed oo tirada badan inay ka xaqabtirto bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan leenahay mobile internetka magaalada ugu wanaagsan kaasoo hadda noocyo badan kala duwan oo bishan koodeed waxaan daahfurnay midka loo yaqaano billaha ah bishii oo dhan iska isticmaal $17 oo quraan iska dhib sidaa rabtid oo isticmaal sidoo kale waxaa heli kartaan meelaha ganacsiga guryaha internetka loo yaqaano point-to-point-ga oo aad internet xawaare sare aad u heli kartid sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay leedahay e-dahab ama mobile money-ga mobilka lacagaha lagu qaato midka aanan lahayn xadidka aan lahayn oo lacagta aad ku qaadi karo wuxuuna leeyahay e-dahabkaasi waxyaalo badan looga faa'iideysan karaa markii laga tago lacagta aad ku keedsanaysid ama aad ku dirsanaysid waxaan keenay barnaamij la dhahayo keedsana wuxuu yahay waa barnaamij loo yaqaano Soomaalida u yaqaanaan ayuto ama hagbad hadba qof u yaqaano maxay tahay bulshada Soomaaliyeed inta badan ama bulshada Soomaaliyeed waxaa aad loogu dhib qabaa
keedka in qofku wax keedsado marka waxaan anagoo arrinkaasi ka duulayna ama aan rabno inaan baahidaas ka jawaabno waxaan keennay barnaamij la dhahayo keedso oo lagu galo xidig 232 afar gees wuxuu kuu saamaxayaa inaad lacagtaada keedsan kartid waxaa laga yaabaa dadka hagbadda yaqaano ama yuutada yaqaano markii ay lugta kuu soo go'do waa la wada yaqaanaaye in qofkii haayey uu ku dhaho intuu xoogaa ku tagtay uu dhaho xoogaa qofaa dhiman qofaa weli keenin inuu dhahaa laga yaabaa laakiin middan ma yaqaano system waxaad keedsan kartaa 3 bilood waxaad keedsan kartaa 6 bilood sidoo kale waxaad keedsan kartaa sanad waqtiga aad keedsatay oo lacagtaasi ka hor ma la bixi kartid oo waxaa loogu talagalay inaad baahidaada iska xakameyn kartid ama laga xakameeyo sidoo kale waxaan keennay macnaha maadaama annaga dadka aan ka ganacsano oo aan ganacsiga iyo shaqooyin badan aan ka dhex sameyno bulshada waxyaalaha social responsibility ah oo waxay ka mid yihiin inaan qofka aan wax deymin karno waxaa ogtihiin in bangigeena dahabshiil qaybteena DPI dahabshiil bangiga internationalka qaybta internationalka inuu yahay wadanka Soomaaliya midka ugu muraabaxa badan ama ugu investment badan bulshada kaas marka waxaa loo maraa shuruudo badan iyo wuxuu leeyahay qofka maadaama lacaga badan oo la qaadanayo shuruudo uu leeyahay laakiin waxaan soo kordhinay qofka waxaa laga yaabaa in uu bisha 25 markii la maraayo inuu biilkii ka go'o ama qof hadduu mushaari ahaa uu mushaarkii ka go'o lacagna ma haysto wuuna qofna dadka Soomaali xaq qabay leeyihiin inuu qof wax weydiistana ma rabo marka waxaa laga yaabaa markaas inuu kugu soo dhacdo yaa kugu dhow oo maanta deyn ka heli kartaa inaad dhahdid anagoo taas ka duulayno baahidaasana daboolayno waxaa sameynay barnaamij la dhahayo kaabe muxuu yahay inaad Somtel iyo dahabshiil oo iswadeersan oo macnaha iskaashanayo inaad deyn ka heli kartid deyntaas inaad heli kartid u dhaxaysa $1 ilaa $100 oo isii gaarsii ah biilkaaga markaa heshidna aad iska soo celin doontid marka waxaan nahay shirkadii ugu horeysay shuruud la'aan macaamiisheeda lacag ku aamintay Soomaalida tuuga ma ah intaasoo sano dadka dahabshiil ka shaqeynaya daa wareysatid waxaa leedahay qof wuxuu leeyahay lacag ali soo diray haye damiin ma haysto marka isku khatarto waxaa leedahay waayahay war anaa ku damintay qofkii meesha fadhiya damiinanayo anaa ku damintay waxba inta badan waxa kama soo laabtaan 99 wax kama soo laabtaan marka Soomaalida arrinkaas anagoo ku dhiiranay waxaa keenay barnaamijkan kaabe oo hadhowta waxaa laga yaabaa sidoo kale inaad intaad maqaayad gashay adoo ismoodsiiyay inaad lacag wadatid marka aad maqaayada gashay aad lacag wadanba marka waagi hore saxamaha la isku dhaqan jiray sidaas saxamaha loogu dhaqan bulshadeena iyo shacabkeena macaamiisha Somtel waxa uu keenay arin ay wax ka deensan karaan xidig 900 ayay garaacayaan war in aad $10 isoo tuuro Somtel aad dhahaysa ama DPI aad dhigi kartaa marka barnaamijkaas oo dhan waxa uu keenay bulshadeena shacabka Soomaaliyeed waxaana nahay shirkad ugu horeysay arimahaas soo kordhisay waxaa marqaati ka tihiin oo idinka dhamaantiin wada ogtihiin bulshada Soomaaliyeed dhammaan iyo dadka heer hiraanba in la dhahay Soomaaliya wax shirkadaha waa wadanka ugu raqiisan internetka magacaas dadka soo hooyday waxaa lambar 1 ka ah aan cidna soo labeelin shirkadda isgaarsiinta Somtel maxaa yeelay waxay haysataa internetka ugu raqiisan Soomaaliya haddii internetka shirkadda ugu raqiisan Soomaaliya tahay waa mid kaliya shirkadda u soo hooyday magaca ah inay 22 wadan oo Carabeed oo adduunka inay noqoto shirkadda ugu raqiisan internetka waxaas oo dhan waxaan u keenay bulshadeena inaan u xidhno sidoo kale maxaan nahay shirkadii aan ku kaftana ku sii dareen shirkadii ugu horeysay oo haween xalfad ku qabsatay gobolka Hiiraan marka taas ay laftigeedana inaan ku darsano quruxdaan Hiiraan waa ku qarsooneed aad ay u qurxoon tahay marka waa in laga soo saaraa hadda ka bacdina meeshaan xalfadaha haweenkii ayadana lagu soo daraa warka waan igu dheereeyay shirkadda isgaarsiinta sidoo kalena waxay ayadana keentay shareska u jeedaan shareskaas waa noo furan yahay waxa waaye shareska faa'iido badan u leeyahay waxaa laga yaabaa inuu qof walba 5,000 3,000 4,000 6,000 uu haysto ninkii marka dukaan uma furto meel yar la tago waxaa laga yaabaa 3 bilood war ninkii hebel dukaan uu furtaa maqlaysaa haye 3 bilood ka bacdi waa musalafay marka waxaa la marka awoodeena laakiin taas u geeyno 3,000 oo cali haayo iyo 5,000 oo ani haysto iyo Faadumo 40,000 haysta isku darno waxay noqonaysaa shirkadda isgaarsiinta Somtel wax badan bay u noqonaysaa waxayna noqonaysaa shirkad la isla wada leeyahay shirkaddan waagi hore aniga marketinga shirkaddan wax badan ka shaqeyn jiray su'aasha ugu badan aan ka jawaabi lahaa waxay kamid ahayd war shirkaddan hal qof iska leh maxaad noogu wadaa laakiin labada sanaad ugu dambeysay jawaab fiican aan lahaa oo intaas qof ayaa shacab Soomaali ah
ayaa wax ku lahayd heer hiiraan way maasan yihiin shirkadiina ahayd meelaha ugu macaamilka badan oo aan ku tashanaya ku jirtiin warku waan igu dheereeyey waana maasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu